hay-adda DDG iska rabsanayaan maamulada heer gobol degmo iyo gudida badbaadada bulshada ayaa u tagay kulanka naqsi oo ku saabsan xalinta khilaafaadka beeraha tuulooyinka baargo iyo masaajidka xalinta khilaafaadkan ayaa ahaa mid ku soo gabagabaysmatay xaalad nabdoon ugu horantii goobtaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha gudida badbaadada bulshada xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud qaambiil oo ka warbixiyay waxqabadka ay samaysay hay-adda DDG muddadii ay deganay deegaankan kaliyaanu halkan hadal badan uma kicin waxaan ku caawin anigoo ku hadlaya afka hay'adda DDG waxaan gudoomiyaha gudida badbaadada ee degmada Balgudle hadiya jeer waxyaabahan u abuuranayna xalinta khilaafaadka iyo isqabqabsiga dadka ee ugu badan yihiin beeraha iyo waxaas waxyaabo badan waan ka soo qabanay xagga beeraha khilaafaadka badan oo soo dhameeyay dadkuna ay masaad warbixinta u siisay waxyaabo badan baad dhameysayno wad ku mahadsantiin sida oo kale barasaab ku xigeenka gobolka Hawd Khadar Xasan Xirsi iyo maayirka degmada Balgudle Cabdi Imaan Jaamac ayaa ka marakacay hay'adda DDG waxqabadka ay samaysay intii ay deganay deegaanka gobolka Hawd ee degmada Balgudle xagga khilaafaadka oo ay nagala shaqeysay hay'adda DDG oo iyadana waqtiga la socota tan khilaafaadka hadaan soo daadego horta waxay ummad isir leh dhaqan leh oo weligeedba intaynu soo jirnay wala tali jiro odayaal baynu lahayn dad ba isir labayno hayno meel ay ku arooraan leh oo isdageysta oo iyagu xalisha horta taas wax Ilaahay loogu xamdinaqaa oo hal magaaladeenan iyo magaalooyin kale oo badan ba masaajidka iyo magaalooyin kale oo badan ba deedo waxa uu xalilaa odayaasha iyo guddigaasun marka Ilaahay horta inoo sakhiray inaynu isfahamno ilaa bariga ay Ilaahay wax loogu xamdinaqaa waxaan idinku gubaabinayaa inta mahad celinayaa khilaafaadka badan dhamaysan waxaana jeclay kuwa dambana inaa dhamaysan doonta hadii Ilaahay karaali noqdo gabagabadii madashaasi waxaa soo afmaray madaxa xafiisadka hay'adda DDG ee degmada Balgudle Muxiyadiin Maxamed Yuusuf oo warbixin ka bixiyay waxqabadka hay'adda DDG iyo mashaariicda ay ka fulisay deegaanka degmada Balgudle hay'adda DDG ayaa deegaankan marka la eego ka fulisay degmada Balgudle mashaariic Cabdiraxmaan Samriye oo Cable TV Balgudle Cabdiraxmaan Samriye on Cable TV gobolka Hawd.